يا شكري أدنى مقعة هوي أو هوي كور ما هوي ما تعشين هوي يا أليس ماما website ka warcusubedia warcusub.com ayaa maanta booqasho ugu yimi Safiyo Cabdi Warsame oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan Oslo. Safiya ayaa hadda koor waxa laga qaatay ilmo ayadoo aan filin. Maanta waxaan joognaa gurigeeda. Safiya horta waa ku maasan tahay soo dhaweyntaan soo dhaweysay. Adaa mudan soo dhawo. Safiyo waxa ka muuqata farxad maanta maadaama ilmaha ay kula joogaan. ما نو شيء كرتا كو بالسي وحكو بلودين وحير وربحين ما نقصي كرتا سببت إلما لغا قاتي إيجورت لغا قاتي وحلمي ده كل أنا قف وحنا هلا يقانو مقالة نصلو عيال كيغن وحلو قاتي بصاصي وبيني قصة مستي ويري عيال كحينسا ويسوقو ديسا إن قارن ويكسر تجسا قارن اللي ما نكون قصبيسا. قرما المها اللي قاعد تدي. إن وحلاقي قاعد لواتني تضودي بشلحات السنة كان. أوكي. معناها ما قصة عمل يهد. إن واحد سجال كي أرورني مو أو واحد من. مركي لو إيمان هاي والمها اللي قاعد ملوسو شاقي. إن اللي مصو شاقين كدس بالي ويميد وأنا هردني. marka sidaa darteed albaabka igu soo garaaceen ilmahaygiina waxay ku qaateen si xoog ah oo ay yiraahdeen wad dhoofaysay 30 bishaad baxaysay waxaanu helnay tibis ama waana loo soo sheegay telefoon baan loogu soo sheegay kadibna qofkii noo soo sheegay waanu la kulanay information buuxa ayuu na siiyay inaad rabtid ciyaalka inaad Soomaaliya geysid oo aad qaarna gudid qaarna niman ku dirtid marka si aad u foolxun baa ciyaalka la iga qaatay laakiin alxamdulillah shukri waa la ii soo celiyay qaladkoodana kulay way ogaadeen marka ay ciyaalka qaateen kadib qofka arrintan sameeyay ama basaasnimada sameeyayna anigu waan aqaana kulay daah iga masaarna laakiin waqti aan waqtigan ahayn baa ilaahayga ilmaha ii soo celiyay isna ka jasi marin doona insha Allah qofka basaasnimada adiga ku sameeyay gabar miyaa mise wiil waa gabar waa okay marka magaceedii waxba ma ku weydiinayno man u baahnin laakiin ya wax ma dhileed waxaan dhihi lahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ilmahayga haysto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ilmahayga nolol xun ku jirin waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqayaa ilmahayga inuu ii soo celiyay oo wada noolnahay qofkii basaasayna arrintii uu watay uu qasaaray ama fuundo ka noqotay laakiin one day inuu ilaahay ka jaaseynayo anigana aan leeyahay ma cafinayo noloshayda inta ka dhiman. Safiyo waxay warbixin ma nagsi kartaa maalintaas lagu iimaanayay sidii wax u dhaceen ciyaalkayga maalintii laga qaatay xataa hadda markaan ka sheekaynayo waxaan xasuustaa dhibaatadii la ii geystay qof Soomaali ah oo walaalka ah oo aadan dhibaato gaarsiinin oo aadan de weliga dhibaato xanuun la aadan gaarsiinin marka aad waxaan ugu faraxsanahay walaal in maalintii ilmaha laga qaatayna ay ii ahayd naxdin maantana aan faraxsanahay. Okay maxay ma naxdin kugu ahayd waxay naxdin iigu ahayd qof dhan oo ciyaalka ay dhashay intaas macnaha soo korinaysay xoog looga qaatay oo macnaha gurigan askar la keenay bulletin la keenay qoladii ciyaalka qaabilsaneedna la keenay oo si xoog ah oo lama filaan ah oo naxdin leh oo kuleyl leh ayaa la iiga qaatay oo awood baa la ii sheegtay laakiin arrintii ku guuleysan waayeen waan ilaahay mahadiis waxa xoog ii caawiyay oo aan halkan uga mahadnaqayaane ururada qaarkood oo is yaqaano oo aan soo koobi karin
ama dadka walaalaheeyo soomaalida ah oo magaalada degan oo ay caawiyey oo maalintaa dhibaataysnaa ee garab taagnaa ayaa waxaan leeyahay jasaakallaahu khayr, waa mahadsantihiin sida ay caawiseen. maxay ahayd tol ciyaalkaygina maanta waan haystaa, dhibaato wixii isoo gaareen ilaahay baan u sheeganayaa oo iga caawinayo. safiyo, ilmaha markii laga qaadayo maalintaas yaa yimi, dadka yimi maxay ahayn? waxaa albaabka igu soo garaacay laba naag iyo nin boliis ah oo dhar caadiya wato iyo laba qof oo ka shaqeeyo xafiiska ciyaalka qaabilsan iyo gabar tolka ah ayaa ii wada yimi markii hore. markii dambena waxaa noo yimaaday 3 askari oo dharkii ku labisan, aan ahayn dharka buluuga ah oo ah dharka murki buluuga la yiraahdo ama buluuga mugdiga ah wato. waa kuwa oo loo diro criminal dadka criminalka iyo waxaas. okay. marka maxkamad miyaa dhacday? maxkamadaa dhacday. maxkamadda wax jawaaba layma siinin. maalin kadib ayaa la ii sheegay in gabadhayda weyn ay free noqotay, laakiin 4 yaryar la haysanayo. hadda ilmaha waa kula joogaan? qaabkay kula joogaan hadda ma dhamaaday keyskan mise maxay kula tahay? sida horta sharciga qolada ciyaalka qaabilsan waxa weeyaan qolada ay soo gashaba 3 bilood ayay ku jiraysaa saaga. sida aniga sasaankaan u arko ama aan fiiriyey waxaan u arkaa inaysan haynin wax cadaan ah. marka hadda wax dhibaato aan kuma qabo, alxamdulillah, shukr, ilmihiina way ila joogaan. maxaa lagaga qaatay ilmaha ayaa isleedahay? ayaga maxay leeyihiin? ayaga waxay leeyihiin ciyaalkii baad soo gudaysay. intaas bisa lagaga qaatay? intaas bisa lagaga qaatay.